Bismillahirrahmanirrahim. Sida aad u aragtaan waa ilmihii Chinese-ka ahaa ee la keenay hosbitaalkii Mingrel ee dalka China ku yaalay oo loogu talagalay in cunugani wax lagaga qabto kuwaasi oo maskaxda ilmaha dhaqaatiirta ay ka weyn tahay cilmiga ay barteen. waa markay hooyadeed hayso ay dhabta ku hayso cunugan. Dhaqaatiirtu waxay cadeeyeen in ilmo caloosha ku hayso isagoo cunugii haddana keligii jiifo waa qabo 1 sano jir sida walaalkii ka yar caloosha ku sida. Waxaana la xaqiijiyay in ilmaha calooshiisa ku jiraan laakiinse weli lama kala cadeynin. Waxaana warka sida aan horey aan idinku ballan qaadayba haddana aan la socon doonaa bal cunuga wuxuu dhalo iyo waxay noqdaan. Wadani TV oo aad daawanaysaan waxaan idin leenahay mucjisooyinka caalamka ayay ka mid tahay. waxaana kala xiriiri kartaa hosbitaalka weyn ee mingrel.com adigoo dhaqaatiirtana weydiin karaa haddii aadan rumaynaynin. waana mahadsantihiin daawadayaal sida sharafta leh ee aad oo la socon kartaan mucjisooyinka Allah. Cilmiga dhaqaatiirta ayay ka weyn tahay waxaani. haddaba waa ka cunugii oo la dilaalinayo garbaha la sido ilmana daadinaya ayaa dhaqaatiirta la hor keenay waxbana kama ay qabanin. waa mucjisadan 2010 insha Allah ta'ala waan la socodsiin doonaa bal cunugaasi wuxuu dhalo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.